traits wale qayb xun waa ku jirtaa qayb san waa ku jirtaa laakiin ani waxaan rabaa anoona hadda farmaajo waa xun yahay iwaasiyaan lahayn ninkii u maleeyaan ma ahan intaasaan rabaa inaan ku soo koobo diidayna kana dagaalamay dad badan baa waxay sheegaan madaxweynaha saas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya amarkiisa ayaa lagu bixiyay golba dhagax amarkiisana diyaar lagu saaray bateen hadu baadii diibteen waxa ugu tilmaantay inaan ahay argagixisay umad Soomaaliyeed inaan ka abaabulahay khatar iyo dhibaato korka sare loo dhigo qalbi dhagax isdhiibaa ma jirin qalbi dhagax annaga dhiibnay Soma ما طلينا بتسوقي سمبل وشيء ما تسبل waa ku sheegay reed ani waa ku sheegay foreign policy ani dawladna ani xiriir la leh Soma ani horta waxa rabaa Soomaalidu in tiraamay aniga ma dhiibin hebel a dhiibay orniyo arrinkaas qalbi dhagax dhiibaa anu qayban ka ah laakiin igumana bilaaban igumana dhamaan amarka hal soo qabta galkacay yaa si toos ah ma raba inaan arrinkaas waa operation team waan sheegay inaan ka hadlo ma rabaan ma raba inaan ka hadlo taas iga wala soo qabto taas ma horta qarsoon waaldi ama qarsoonta waxa kale too dhan aba arkiis waa argaagtan xaqa waa mid cadaanaya si walba oo loo qoriyo magaciisu waa Cabdikariim Muuse qalbi dhagax horta naanaysta qalbi dhagax xalli ma ka tahay in lagu yeero waa wax magacaan soo barta hadda magac bay noqotay way marka amaana ma aha hadda aflagaadana ma aha waa magac laakiin de xilligii uu baxay xaaladaas buu ka turjumay wax kala ma laakiin dhibo ma aragtin lagu yeero dhibo ma ku soo jiray naanaystan qalbi dhagax xal ugu bixi yaas ku bixi niyo iyadoo la idhaan ark way qofkii bixiye ma garanayo way hatta xilligii bilaabatay ma garanayo iyadoo la idhaan arkay way ma garanayo ciidamadan ka dhax maqlay oo laf ma xaga cadawga ka timid iyadoo la idhaan anigoo la igu yeero oo ciidamadu igu yeeray qalbi dhagax wuxuu ka tirsanaa jabhadii ONLF waa jabhadii la aasaasay sanadkii 1984 ayadoo u dagaalamaysa madaxbanaanida iyo xornimada dadka iyo dhulka Soomaaliya Itoobiya iyo Ogaadeniya halgama qalbi dhagax oo adduunka inta joogto maxaad ugu jeclaan lahayd inaad maqasho waxaan ugu jeclaan lahaa shacbiga Ogaadeniya ayuu ka tashaday noloshayda oo dhan intaas aan ugu jeclaa adduunyada intaan ka tagin maan maqal mar haddaan maqli lahaa intaas ugu jeclaa taa inaan maqlo ta ku xigtaan inaan maqla inay noqoto Soomaali way midowday qaabkii loo soo qabtay qalbi dhagax waxa uu joogay magaalada Gaalkacyo xilli waqti dambe ayaa loo soo garaacay albaabka hotel uu ka degnaa magaalada Gaalkacyo dib iyo silac badan kadib waxaa loo soo gudbiyay magaalada Muqdisho dawladda farmaajo qalbi dhagax waxa uu ka filanayay wanaag iyo taageero fiican asaatee maalmo kadib waxaa dhacday in qalbi dhagax loo wareejiyo dalka Itoobiya halkaas oo rajadiisii ay ku dhuntay waxba aan ka jirin wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee dhiiba muwaadin Soomaaliyeed ee jeebeeya oo indhaha ka xira waliba ninkuu dhiibay sargaal ciidamada qaranka Soomaaliya ka mid ah dadka Soomaaliya sawan u dagaalamo ka mid ah intuu jeebeeyay u dhiibay Itoobiya ma dhahay u dhiibay TPLF tikray u dhiibay gabraan laga sheekeeya wallahi gabraan inta jooji ayuu u dhiibay markaas abiyay iyo isbedelkan ma jirin ba abiyay ayaa soo sii daayay qalbi dhagax marka waa taariikh u qoran oo ugu jirta diiwaanka haddana waa madaxweynihii ugu horeeyay gudaha Soomaaliya doorasho u adeegsada ciidamo shisheeye Itoobiyaan ah golaha wasiirada waxay soo saareen hadal dhadhankiisu uu ahaa in qalbi dhagax uu yahay argagixiso isaga iyo ONLF ayna ka soo horjeedaan amniga waddanka xiriirna ay la leeyihiin al-shabaab golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF golaha ayaa ugu horeyn warbixin ka dhageystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falalid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhaxwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab muddo kadib qalbi dhagax waxa uu ka soo baxay xabsigii isagoo heshiisyo kala saxiixday dawladda Itoobiya waxay qoratay in jabhadda ONLF aysan ahayn argagixiso inkastoo golaha wasiirada Soomaaliya ay ilaa hadda ay u qoran tahay in ONLF ay tahay argagixiso
baarlamaankase muxuu ka yiri arrinkaasi wuxuu iga qanciyay wuxuu igu yiri oo runtii ayaan darra ahayd anna aan ugu jawaabay inuu yiri 20,000 oo ciidan ah oo Ethiopian ah dalka joogta khatar baan galaynaa haddii aan ninkan la dhiibin haddii aan dhiibi lahayn khatar baan galnaa anuguna aan ugu jawaabay 20 milyan oo qof oo Soomaaliya ayaad inta shucuurkooda iyo dareenkooda ku xadgudubtay ayaad leedahay 20,000 oo Ethiopian ah dhowraya sharcigoodii sidaas madaxweyne Soomaaliyeed ku noqon kartid قضية الصومالية ديك الصومالية ماضي الصومالية شرطي كرامة الصومالية مواد الصومالية هذا ديبتي وحلم يتاعي وضك الصومالية عن ديبي هذه تظن ضوء حيش يعني مدحوينها ساسة مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية أمريكيس أيا لو بحي قلب الألح أمريكيس أنا جاد الوصاري واحد ذاك لو شيء حكم الجراع marka dabcan madaxweynaha aragteen arintaas dabcan xilligeedii ay ahayd maxaad kala kulantay madaxweynaha wuxuu u dhahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo qalbi dhagax dhibitaankiisa mas'uuliyadiisa ana askale aan ka wada hadalna caruurtiisa iyo sacad anagoo guddiga markaa u tagnay sacad su'aal qalbi dhagax ma argagixisa mise waa halgamaa Soomaaliyeed in caasimadii SYL oo madaxweyne Farmaajo uu suray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taaladiis oo halgamaaya Axmed Guray taaladiis oo halgamaaya Xawataako dhagaxtuur in dad halgamayaal oo dhagxaanaho horay dad u dhintay dhagxaantooda si loo xasuusto dowrkoodii halganka in la suro qof nool oo halgamayana oo qadiyad u taaganna la qabto runtii munaafaqnimada siyaasadda Soomaaliya ku jirtay qayb ka tahay su'aal Farmaajo wax ma ka ogaa qabashadii qalbi dhagax markii hore waxaan aaminsanahay cayba ku tahay madaxweynaha baaba cayba madaxweynaha qadiyad noocaas hadduu ogaan waayo dee waaba dalkaba ma ogtahay halis buu ku jiraa dalku wuuna og yahay xildhibaanada uu la kulmay baa anigaanu igala kulmay qadiyadda maalin baarlamaanka aan ka hor istaago fanaanada guduudan soo gashtay dad badan baa waxay sheegaan madaxweynaha saas madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya amarkiisa ayaa lagu bixiyay qalbi dhagax amarkiisana diyaarad lagu saaray waxa dadka loo sheegay waxa kama jiraan marka dabcan madaxweynaha aragteen arintaas dabcan xilligeedii ay ahayd maxaad kala kulantay madaxweynaha wuxuu u dhahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo qalbi dhagax dhibitaankiisa mas'uuliyadiisa ana askale aan ka wada hadalna caruurtiisa iyo sacad anagoo guddiga markaa u tagnay sacad waxyaabihii dawladda ay ku marmarsiiyo waxaa kamid ah in qalbi dhagax oo rabay Itoobiya oo watay baasaboorkii una baahnaa in laga caawiyo dhanka fiisaha haddaba maxaa ka jira ma jira baasaboor Ethiopiana oo aad lahayd xilligaasi oo laga qaaday sawir laga qaaday sidaana lagu faafiyay Itoobiya dagaalkana wuxuu bilowday 1994 yuu bilowday xilliga inta hale kadib baasaboorka aan Itoobiya ka qaadanay muxuu ahaa Itoobiya dagaal baan kula jirnay dadku dawladuna way taqaanay cid walbana way taqaanay marka waxa weeye waa been iyo waliba nooc maaragtay doqonnimo inay yiraahdaan wuxuu lahaa baasaboor ninka Itoobiya la dagaalamay oo fiisaan hayna oo ku soo galay Itoobiya soo siisay Cabdullaahi Cali Sambaloshe wuxuu ka mid ahaa raggii gacanta weyn ka geystay qabashadii qalbi dhagax wuxuuna aaminsan yahay in qalbi dhagax uu asiga badbaadiyay maadaama haddii laga dhiibi lahaa qalbi dhagax magaalada Gaalkacyo oo dhib badan la kulmi lahaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu qalad weyn ka galay una u baahan yahay in la cafiyo kiiskan la soo afjaro anuu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagax iyo qoyskiisii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ONLF aan ugu cudur daarto oo raali gelin buuxda oo public aan ka bixiyo doorkii aan anigu waxaan aaminsanahay waa soo badbaadiyay bad iyo alool libari ku jira waa ka soo baxshay xamaran keenay xamar markii aan keenay horta kadib aan diray Gaalkacyo lagama dirin haddii Gaalkacyo laga diri lahay Abdiilo inuu dilo si raqiis in loo gato qalbi dhagaxna oo wax oo ka faa'iido lahayn anigu hadda ma og xukuumadda Farmaajo ayaa in badan laga codsaday inay qarato dambiga inkastoo ilaa hadda jawaab cad aan naga helin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo inay qaataan ma qaldam waa ilaahay
ONLF inay golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaraan liiska argixisada ONLF xamar ay ku martiqaadaan qalbi dhagax xamar ay ku martiqaadaan si guud Soomaaliya ay ugu samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso ONLFna ay fursad u hesho inay caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garayntii iyo argixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan su'aal maxaa laga wadaa u noolow hal maalin sidii libaaxa oo kale intii u noolaa lahayd 100 sano sidii bisadaha oo kale haddaan qabaa waay waan qabaa taa waa aaminsana waay waxaan idhi macnaheedu muxuu noqonayaa 100 sano inaad ahaato sida daanyeerta iyo bisada inaad u noolaato waxaa ka fiican hal daqiiqo adoo sharaf leh oo libaax inaad noolaato waay يعني waxa weey waxaan ula jeedaa waxa weey intaan noqon lahayd dad masaakiin oo cid walba ay ku tumato oo gumaysigu wuxuu doona ka fushado oo dadkiisa si la doono loo burburiyo oo dumarkiisa si la doono loo kufsado oo qadiyadiisa iyo masiirkiisa si la doono loo gafsiyo waxa intaan ahaan lahayd dad la kala qaybiyo ayaga la isku jeebiyo qashan intaan ahaan lahayd inaan ahaana dad leh han dad aaminsan inay xoroobi karaan gumaysiga dad aaminsan haddii ay la dagaalamaan inay ka adkaan karaan weliba ka soo adkaaday xiniyihii weli inaan leenahay dandamada inaan weli qolada weli u hanqaltaagaysa in annaga na qabsatana inayna marnaba ayna dhacay inay na qabsato cidna qabsan kartaana inayna jirin